kusoo dhawaada Akadeemiyadda Farqurxinta Laatiinka ee waa sugay hore waxaan soo duubnay laba nooc oo kala ah Italic 1 iyo Italic 2 oo kiiba aynu kasoo sameynay 23 cashar haatan oo ay taariikhdu tahay dabayaaqada 2020 waxaa bilaabaynaa nooca saddexaad ee Italic 3 kusoo dhawaada maadadeennii farqurxinta noocii saddexaad ee Italic 3 nooca kan wuxuu aad ugu egyahay noocii aan soo maraynay Italic 2 casharkeena koowaad casharkii koowaad waxaan ku qaadan doonaa xarfaha yaryarka A ilaa iyo F aan guda galna casharkeena xarafka A markaa qoraysid dhaxda ayaa ku qoraysaa xarafka A korka ayaa ka soo bilaabaysaa halka ayaa imaanaysaa xariiqana halka ayaa ka marsiinaysaa xarafka A marka laan ku celiyo halka ka soo bilaaw inta imo madaxa iska laab halka uu kala ka soo marsii xarafka A xarafka B kor ayaa ka soo bilaabaysaa dhinacan ayaa u laabaysaa madaxiisa xarafka B halka ayaa ka heleysaa dhaxdana waad ku laabaysaa xarafka B marka laan ku celiyo halkaas madaxiisa aadi dhaxdana ku laab xarafka B xarafka C marka qoraysid halka kor ka soo bilaaw madaxiisana laab xarafka C xarafka C marka laan ku celiyo halka ka soo bilaaw inta kan madaxiisana laab xarafka C xarafka D marka qoraysid halka kor ka soo bilaaw madaxana laab ushiisasna halka ka soo qabo dhinaca adigoo madaxa ugu sameynay xarafka D xarafka D marka laan ku celiyo C samee kadibna halka ka soo qabo madaxiisa xarafka D xarafka E marka qoraysid dhaxda ayaa ku qoraysaa xarafka E marka laan ku celiyo dhaxdaas ayaa ku qoraysaa xarafka E xarafka F kor ayaa ka soo bilaabaysaa xarafka F ilaa halka aad keentid halkaasna xariiq ayaa ka marsiinaysaa xarafka F korkaas ka soo qabo ilaa halkan aad keentid halkaana xariiq ka marsi xarafka F aan u gudubno buugga loogu talagalay farqurxinta laatiinka xarafka A labada leen oo dhaxda ayaa ku qoraysaa kor ka soo bilaaw intaas samee ka bacdina usha kor kaga soo xir xarafka B ul madax laaban kor ka soo samee ubucda dhaxdana ku laab xarafka B xarafka C isagana labada leen oo dhexe ku qor xarafka D isagana xarafkii C qor kadibna ul madax la kor kaga soo xir xarafka E isagana labada leen oo dhaxda ku qor xarafka F leenka uu sareeyo casaanka ama gaduudka ka soo bilaabo madaxiisa leenka saddexaad keen xariiqna halka leenka ku aadan ka marsi marka laan ku celiyo xarafka A labada leen oo dhexe ku qor xariiqna halka kor kaga soo xiro usha tigta leh xarafka B kor ka soo bilaaw ubucda dhaxdana ku laab koobinta xarafka C labada leen oo dhexe ayaa ku qoraysaa kor ayaa ka soo bilaabaysaa xarafka C xarafka D isagana waxaa qoraysaa xarafkii C kadibna usha madaxa leh kor kaga soo xir tigtan u samey xarafka E labada leen oo dhaxdaasna ku qor xarafka F leenka kor ee gaduudka ka soo bilaaw leenka saddexaad keen xariiqna halka leenku aadan ka marsi ku soo qor ugu yaraan hal bog ee buugaaga farqurxinta waxaa ii soo jeedinaya qore Maxamed Abdalla waa suge wixii faahfaahin ah waxaad igala soo xiriiri karaysaan nambarka aan qorayo waa inoo casharka xiga ee labaad haddii oo la yiraahdo